kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamij gaar ah oo la yidhaahdo baaq caafimaada caafimaadnagi iyo naruuradu nuurka hagaye nafteena bulshooy nolosha kaabaye nugaylka jira barnaamijkeennan baaqa caafimaad dhegaystayaal waxa aynu ku soo qaadan doonnaa oo aynu ku qaadadhigi doonnaa xanuunkan guud ahaan dunida sida xaddaafka ugu faafay ee la yidhaahdo coronavirus haddaba waa maxay muxuu yahay waa su-aasha u horraysa ee aynu isku weydiin doonno barnaamijkeennani waxaan doonaya inaan u sheego ummadda somalilan iyo dadkao dhan iyo wixii deganba inaynu maanta ku soconayno awaamirta wasaaradda caafimaadka cid kale amar kama bixin karto cid kale kama warrami karto anigoo madaxweynihii waxaan raacayaa amarka uu isiiyo dhakhtarka u hadlay wasaaradda caafimaadka istaag taagnoog goorana kuu xidhan waan aqbalaya cid ha salaamin waan aqbalaya kama hadli kartid waan aqbalaya wasiirku tiisuu raacaya jananku tiisuu raacaya saxafigu tiisuu raacaya ninka baacbisharkii toodu raacaya sidaa waxaa ku jirta danteena xanuunkan maadaama uu yahay xanuun dilaayo oo halis ah in aynu u dhaganuglaanno islamarkaasina guud ahaan aynu ku dabafaylo wasaaradda caafimaadka ee dalka waa xanuun sensitive oo markaasi si yar oo fudud u baahaya sida aad ka aragtaanba socodkiisu sida uu yahay haddaba waxaa loo baahan yahay innaga dalkeenna jamhuuriyadda somalilan in aynu noqonno dad u dhaganugul go'aannada ka soo baxaya wasaaraddeenna caafimaadka si aad markaasi u badbaadiso naftaada nafta jaarkaaga iyo nafta qarankaba ilaahay maanta naga ka soo horsaaree kaale inaad roon yar wada hadal la balay inaad hawlba arrinta bal nagu sii ahayde bal jab waalan tahay adeereedhe qof dhanoo nool baa inaadeer meel giga xidhanoo qol ku xidhan sida neef muxuu ahaa dee wuxuu ahaa waa mid yaraan adeer u ahay oo aan kii aan walaala ahayn dhalay kowdhe waa kii yaray xaggaa dabadda ku maqnaa kowdhe reerkaba ninka wuxuu ahaa biilin jiray reerka haye ee lagu noolaa gebigiisuba kowdhe saddex cisho ka hor buu yimi ma garanaysaa markaa tan dawladda uunbaa maqsin ku qufulatay sidii neef xoolaha kowdhe annagay dee noo jeedaa baan u malaynayaa niyow وأنا قرأته ها وينك حقو كيم يمك حال ما ساحن ما يروح كيم وحو كيم تشاينا ده واريا ها هرمي دوالنك ورا ده لمي ورا ده وزارة عافمات كسو تشرين هذا الماها وردالك حنودو كدلاعان dadka ka yimaada waa la karantiimay dadka meel laga haynaya hadii 14 cisho kadib wax ku soo baxaan waa baaritaan daba la marinaya سوتي اللي مهامة دبلو علي هتي حنون لقاها له. قارن لقيسو. إلا ديارتي وحيل السعودية هذا ما كاية حنون كقبي حلو ذا حلوة. جاينا ذروي حلين عندنا لكم مسودين. صوتنا إلى سؤال اللي بين وياه. نكوان المواطنة والسومال لاندر أنا يتنت ولدي بريهم بقى ولبا هذا لو قلت لكم يسا هياي أدوية السومال لاندر يبهجوا بهالشيء بيهبه كورونا فيروس dalka lagu soo deyn maayo kowdadii adeer nuqor ma ku sheegnaa dhamaan nolosheena guud naruuriya caafimaad nageeyo u baahan tahay nolow kama maarmaye adoo caafimaad darrada rabtaa ma wallahi waa runta caafimaad ka rabnaa ilaahay ay noo siiyay si dalkeenu qarankeenu uga badbaado caafimaad darro ayaa dadka loo kala tiiminaya wasaaraddan caafimaadku waxay kormeer ka lahayd iyo guura dheer degmiyo kulli gobolladii kulan iyo shirar uga wada ku saabsan karoonaha kor loogu qaadayo caafimaadka guud si naftaadu u badbaado ta qarankiyo ta qoysaanba weeyaan ina kan iyadoo dhibaato gaarin heena taada ina kan cidina haysan maysa ina mar ina aad nin wanaagsan baa tay dhageyso horta ilaahay dambigaaga iyo kii waalidkaaba ha dhaafo kowdhe marka waxaad leedahay ko waxba gaari maayaan waa la yarahaynayaa marka waxba laga waa la soo deynaya hadii waxba laga soo waayana wala sidii hadii kalena halkaas lagu hayo inta bugsanayo dawladdiisa iyo dadkiisa baa haya ayaa hayade waa nin ilaahay baad karaysaa numar hawshan waa yaabay duqa caasimadda hargeysa ayaa isagoo arrintan coronavirus ka dadaalaya islamarkaasina ka hortag samaynaya oo kaashanaya shirkadaha ka shaqeeya dhinaca nadaafadda iyo qaybta fayadhowrka ee dowladda hoose soo